wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi iska horimaad uu ku dhex maray dad shacab ah oo careysan iyo ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Iska horimaadka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Midagale ee gobolka Sanaag kadib markii dadka careysan imaatinka gobolka Sanaag ay banaanbax kala hortageen gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. Hay'ashee ilaaladii gudoomiyaha ay rasaas ku fureen Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo wafdigiisa ayaa waxa ay booqasho ku joogaan gobolka Sanaag iyada oo dadka gobolkaasina aad uga careysan yihiin xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland. dad ku sugan deegaanka Midagale ee gobolka Sanaag ayaa u sheegay warbaahinta in rasaas ay ku dhaawacmeen ilaa 7 ruux oo ay kamid yihiin qaar kamid ah ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. taliye ku-xigeenka booliska maamul goboleedka Puntland Caydiid Axmed Nuur iyo askar la socotay ayaa kamid ah dadka ku dhaawacmay deegaanka Midagale ee gobolka Sanaag. dadka dhaawacmay ayaa guud ahaan tiradooda lagu sheegay 7 ruux oo ay 4 kamid yihiin ciidanka halka 3 kalena ay ahaayeen arday ka qayb galayay banaanbaxyadaasi ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland. banaanbaxyaasha qaarkood ayaa la sheegay in ay adeegsadeen rasaastaas oo sababtay in ay ciidanka ka jawaabaan rasaastaas sababtayna in dhaawac uu halkaasi ka dhaco. ugu dambeyntii wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Badhan uu ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo imaatinka deegaano ka tirsan gobolka Sanaag uu ku tagay gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil.